halkani waa Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland. Maxaad ku ogtahay diyaaradda la sheegay inay taalo magaalada Hargeysa kuna xumaatay ee laga dhigay hoteelka? Xog ayaan idinka haynaa maanta waana u safri doonaa diyaaradda iyo dhexdeeda iyo wax lagu qabtaba. U diyaar garow boorsooyinkaagana xidhxidho. waxay fadhiisatay diyaaradani garoonka diyaaradda ee Hargeysa. Cilad farsamo awgeed waxa ay awood weydeen inay dib u duusho oo halkii ay ka sii wado hayaankeedii duulimaadka dunida. balse ganacsade reer Hargeysa ah ayaa iibsaday diyaaraddan oo ka dhigay hudheel. Shamsi iyo gabadheedu waxay booqasho ugu yimaadeen diyaaradda. waxay doonayaan inay xogo dheeraad ah ka ogaadaan. waxa warbixin siiyay in shaqaalaha oo ka tirsan hudheelkan ka samaysan diyaaradda. waxa uu inoo sheegayaa sida ay diyaaraddan ugu fadhiisatay iyo qaabka ay isugu bedeshay hudheel diyaaraddii rakaabka siday iyo ciladii farsamo ee ay diyaaraddan u fadhiisatay. bal haddaba aynu wax ka ogaano faahfaahinta diyaaraddan isku bedeshay hudheelka. ayaa lahayd diyaaraddan waa Star Airlines laakiin Hargeysa airport kana bitaan Star tro Star magaalada ستار هكا ayaa ka masuulahay walahay dadka jadsi qaad jirto sidoo kana markii dambe ay khayr noqoto ayaana yaama kamid ah iyadoo dadka jadsi ay xadkan Hargeysa markii eeyo marayso ay isla fadhiisan oo taayro soo bixida dadka jadsi la ilaahay bariyeen badan jadsi markii ilaahay bariyeen ilaahay soo saar taayirkii dadkii baa loo amri waay sidii baa lagu dhigay kadib aan halka keenay muka iibsaday mise waa iibsaday waa sar iibsaday You get the story of the airplane, huh? Yes, what not Turjubani now? Translation? This was a real airplane that used to take the people to Hajj, Makkah. Oh. And one day when they carrying a passenger coming back, the wheel one of the wheel will not come out. So they keep braying and the airline is circling around, and finally it did come out. So since then they bought it to retire. They're not using this anymore. And it used to call Star Airline. It belongs to Star Airline. But he bought it off them. The owner of this hotel, Okay. he bought it off them. waa arrin cajiiba marka loo eego Afrika amaba geeska Afrika amaba geyga Soomaalidu ay degto. waxa ay diyaaraddan soo jiidataa malaayiin ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo dhammaan nawaaxiga Somaliland. waxa ganacsadaha uga soo xarotay lacag dakhli aad u badan kadib hudheelkan mucjisada ku samaysan. tani waa Hargeysa. halkan aynu ku sugannahay waa magaalada Hargeysa. waxaad u jeedaan daawada in diyaaradda dhexdeeda Shamsi iyo inanteeda ay ku cuntaynayaan. waa barxadii hudheelka ka samaysan diyaaradda oo ah goob jawigeedu degan yahay, leh dhir fara badan oo lagu madax degsanayo iyo qaybo ka tirsan qaybaha nasashada. ma ku hamiyeysaa daawada inaad mar unu dalxiis tagto diyaaraddan ku taalla magaalada Hargeysa kana soo cuntayso waqtina ku soo qaadato? Gulf Airline Restaurant waa hudheelka ka samaysan diyaaradda magaciisa. markan bal aynu soo eegno qaybaha kale hudheelku ka kooban yahay aan ka ahayn diyaaradda. aynu ka baxno albaabkan. talow maxaa ka sii dambeeya albaabkan? waa goobo nasasho iyo kuraas iska soo horjeeda oo loogu talagalay dad wada socda inay waqti ku wada qaataan ama ku wada shiraan. waxay harsanayaan mid ka mid ah baalasha diyaaradda. halkan waxaa ku yaalla aqal Soomaali iyo aqal weyn oo kala aynu ku soconno oo aynu eegno diyaaraddan iyo qaabka loo gelayo marka ay ku socdaan dadka doonaya inay ka soo cunteeyaan. jaranjaradan dheer kadib halkan waxaa inooga soo muuqan doonaa albaabka laga gelayo diyaaradda. waa kan sad u jeedaan albaabka laga gelayo diyaaradda.
runaantii waa la nashqadeeyey waxaa dhex yaalla roog cagaaran waxaa ka lusha faraawilo aynu hore ugu soconno dalxiiskeenna diyaaraddan goobta cuntada loo bedelay halkan waa qaybtii daawa laga waday ama uu fadhiisanayay kabtaanka diyaaradda waday waad aragtaan daawada wax badan ayaa iska bedelay diyaaradda shirkeedu wuxuu u muuqdaa mid kharaaba oo aan dhaqaaqayn waraayadaheedu waa ay masaxmeen ama waa ay isbedeleen oo si fiican wax loogama arkayo intaa waxaynu ugu soo idlaaday dalxiiskeenii yaraa gaabnaa aynu ku teganay diyaaradda loo bedelay hudheelka haddaba daawade haddii aad ka heshay barnaamijkan ha ilaawin inaad subscribe tirahayd like inaad tirahayd share na tirahayd haddii aad hore nugu jirtayna like iyo commenti wad mahadsantii